golahaasina waxay ku suntan yihiin dhul cunus waa in kasta maanta kun mitir oo sawir ayuu maanta dhulka kaga tagay maanta Berbera ugu horeeyay maayirka gobolka Saaxil siyaasi Khadar Jaamac Caadil ayaa maanta waxa uu ka waramay xaaladda maanta uu dalku marayo iyo doorashooyinka dhawaan la filayo inay ka dhacaan guud ahaan Somaliland iyo horumarka ballaaran ee ka tasqaaday dekada weyn ee magaalada Berbera dhinaca kalena waxa uu siyaasi Khadar Jaamac Caadil uu eedo kulkul soo jeediyay golihii hore deegaanka ee gobolka Saaxil halkan waxaan ka salaamay TV-ga Caalamka 7 News marka hore oo maanta lagu soo boqday gobolka Saaxil inta ka bacdi maanta xukuumaddu waxay qaaday talaabooyin aad u badan oo wax qabad leh oo horumar leh oo cadaalad leh waxaanu aragnaa hadii la soo noqon xagga cadaaladda maanta halkii mar soo wada waynu aragnaa maanta Soomaaliland aad iyo aad bay fiicantay oo wax Ilaahay lagu mahadnaqaawiya hadaynu eegno arrimaha horumarka wadooyinka quruxda badan leh ka hirgelay dhammaan Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi maanta uu garwadooyinka ka yahay iyo wasiirkiisa wadooyinka sida wax u wadaan ee quruxda badan leh waynu aragnaa dhammaan xukuumaddu way ku wada mahadsantahay heer wasiir ilaa heer agaasime hadii aan inta aan dhaafo arrimaha dibadda maanta waxay marayaan meel aad fiican oo aynu maanta wax goosan karno maanta waxaan dal madax bannaan oo adduunyadiisa ku istaagay اعترافكنا وسودو يهاي هلنا يمسدو مدحوينهنا waxa ka go'an waa nin aad iyo aad u adag ilaahay baa mahad waa in lagu mahadiyaa sida wax u wado dalal badan oo Afrikaan imika weyno soo noqdeen weyno waxbayna la wadaan si fiican bayna la wadaan waxa kale oo aan ku darayaa gulihii deegaankii hore ee muddadoodu dhamaaday waa gulihii ugu ayaan ka darnaa gobolka Saaxil soo mara waxaana ku suntan yihiin sifaad xun oo dhul culus ah dhul culus bay ku suntan yihiin walaha deegaanka ilaahayna bedel khayr qaba ayaynu ka rajeynaa ummadda gobolka Saaxil bedel ayaynu ka rajeynaa dambe waayo waa gulihii ugu dhul culus ka badnaa ilaa magaalada labada wado ee bariga galbeed labada kantarool makal ilaa Berbera hadhin ninkastana 1 mitir buu leeyahay maanta Sweera waxaanu leenahay ilaahay baa kala xisaabtami doona maalmaha kamid ah oo ay ka taadiriin bay man doonta xaraanana waxa ma tarto hadii xaraan waxa tarto wara loo arki lahaa ciqaab bila ciqaab taana waxa leeyahay bedel khayr qaba ilaahay ayaan ka rajeynaa ay muddo doortaan kala khayr qaba si degdeg ah xamse jaamac yare telefishinka caalamka 7 News magaala xeebada Berbera.